maxaa la idaacad wareegtada anaa leeyahay waxaan ku leeyahay aniga oo maanta waxaan maqalnay maanta waxaa dhacday dowladda Kenya inay ku dhawaaqday inay erdaas ugu xirtay xiriir qaxootiga maxaa ka warhaysaa ogta waxaan ka warhayaa in horta maanta ay Kenya qaraar Cabdirashiid Janan markuu isku soo dhiibay dowladda federaalka ay ka falcelisay Kenya ee tiraahday 14 bari gudahooda shacabka Soomaaliyeed waa inay iskaga mataqaanaa oo ku dhaqan xeryaha Dadaab iyo Kakuma inay mataqaanaa dalka uga baxaan 14 bari 14 bari waxaa diiday maxallahay shacabka Soomaaliyeed shacabka reer Dadaab waa shacab Soomaaliyeed oo ku dhaqan dhul Soomaaliyeed waxay u badan yihiin shacab qaxootiga Dadaab dadkii reer Kenyaanka ahaayeen oo loo diiday sharciga taas waxaa ka wadaa arrintan waxaa ka dambeysay falcelintan Kenya ay samaysay heshiiskan ula galay Janan dowladda Soomaaliyeed Cabdirashiid Janan Cabdirashiid Janan marka hore Kenya waa waxay ku xuquuqinaysay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed inay ay u adeegsan doonaan Cabdirashiid Janan kala dambeynta iyo cadaaladda ummadda Soomaaliyeed inuu carqaladeeyo laakiin ilaahay baa muqallibul quluub ah ninkii Cabdirashiid Janan ahaa wuxuu dhahay shacabkayga Soomaaliyeed baan geeska raacayaa kadib ay taatika waxay la soo baxeen inay shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan geyga NFD North Eastern Province ay u yaqaanaan Kenya Soomaalidana waxay u yaqaanaan Northern Frontier Defense shacabka waxay xeryaha Dadaab ku nool waa shacab Soomaaliyeed oo markii ay ka waayeen dhaqaale waddanka Kenya aqoonsigina lagu adkeeyay sharciga Kenyaanka on iyo gaajana mataqaanaa ay ku haysay xeryaha qaxootiga ayaa waxay iska diiwaangeliyeen xoolihiina abaaraha ay ka leysay ay waxay iska diiwaangeliyeen xeryaha Dadaab waa shacab Soomaaliya oo u dhashay gobolka NFD so maadaama aysan Kenya waxba aysan ku haysanin waxay mataqaanaa iska diiwaangeliyeen si ay biyo u helaan iyo guriga maxallahay maciishada nolosha qutulyoonkooda si ay u helaan ay waxay iska diiwaangeliyeen qaxootinimo so dhulkoodii waa la rabaa in laga raro dhulkooda waa dhulkii ay mataqaanaa ku dhasheen ay ku koreen dhulkoodii ah so maanta waxaa ka falceliyay xildhibaan aadan bare ducaale oo aqalka sare aqalka baarlamaanka Kenya geeyay macnaheedu waxa waaye Kenya maanta waxay isticmaashay rasaasta ugu dambeysay isticmaashay rasaasteeda ugu dambeysay weeyaan midda kale tana dhaqaale xumaa ku soo aaday Kenya taatikada ugu dambeysay Kenya isticmaalaysa weeyaan laakiin waxaa ka falceliyay xildhibaan aadan bare ducaale wuxuu yiraahday shacabka marka waxaad igu warantaa shucuurta iyo dareenka Soomaalida mataqaana ku dhaqan Kenya Soomaalida haysto oo Kenya haysto Kenya haysto shacabka reer NFD waa shacab Soomaaliyeed oo aan ku haysanin xaquuq waddanka Kenya ninka Masayga ah ninka Turkaanaha ah qori ayuu wataa wuxuu difaacayaa lagu leeyahay dalkiisa laakiin midka Soomaaliyeed ee ku nool geyga NFD qori hadduu qaato waa shuftay sharci ma haysto oo waxa la leeyahay weyn refugee waxaan ka dheehan karnaa Faarax Macalin Dawaara 1997 wareysi maalin hore tuu ka hadlayay asigoo baarlamaanka xildhibaan ah oo baarlamaanka joogo ayaa waxaa loogu wacay adiga qaxootiga tahay ma hadli kartid aamus so shacabka Soomaaliyeed ma haystaan xuquuq ay ku helaan sharci Kenyana waxay iska diiwaangeliyeen qaxootiga si ay u helaan biyo iyo maxallaha qutulyoonkooda macnaheeda Soomaalida oo asheegayso Soomaalida Kenya haysto waxay la mid yihiin levelkooda waxa waaye waa muwaadin darajada labaad
درجة صدحات واللي بها كينيا مركل لدهو كينيا مركل لدهو شعب كصوماليين والدرجة أوجوه سيسو دقالها أوجو بدن أما متى قانا دقائق في فرعون ذنا شعب ككيان كمركل لدهو وشعب كأوجو دقائق بدن أوجو متى قانا تاكسي بير ردي لدهو عشور بحياشة أوجو عشور بحين تبدن ويان أنا كينيا دقالة بكيه ساحريها دداب أو United Nations كي international community كي ASEAN dhulkii Soomaaliyeed ayaa Kenya dib looga kireeyaa ay lacag ku qaataan sanad alla keeno saddexda xiriyo mataqaana xiriyaha dhadhaab shaqaalaha ka shaqeeyo ama askarta amniga ama kuwa mataqaana diiwaangelinta kuwa mataqaana kuwa u shaqeeyo raashin bixinta ama Kenyan yihiin so waxa dhacday aadan barado caalamaanta xildhibaano fara badan ayaa ku taageeray oo u badan kuwa mataqaana xuduudaha Kenya matalan waxay dhaheen haddaynu nahay dadka ku nool xuduudiyaasha Kenya ma haysano resource ay shacabkeena ku helaan sharciyada lama sinna shacabka Kikuyada iyo Jalwada iyo mataqaana shacabka Mukambada centralka degan access waxay haystaan ay ku helaan sharciga access waxay haystaan ay mataqaana dawladda dhaqaalihii ay shacabkeeda dib u gelinaysa ay ku helaan shacabka NFD na wadooyin ma haystaan nolosha asaasiga biyihii ma haystaan taas waxa u sii dheer shuftay iyo mataqaana refuge in loogu waco waa ay ku bahdilan yihiin ويعني هو إن صوت تاسي معها سمارة كينيا حسيته سمارة يعني كل حد أو صوت قاعد إن المذوبان حي لما دام أي لو قنصي أي هين مواد ومحل استدحال مسلمات دول كون أي اللي هين دتك الدجناء خارج من سمارة قبتي جهنا مارك تايو دول كودنا لقى ساري سجارس معها سماها فرصة سمارة هني حد إني كعضون ها ويتجيسا إن شاء الله إني متغنى شعبك الصوماليين waxaa doqonta usha agteeda ku dhufo hadii garan weysana ayadu ku dhufo waxaan ka dheehan karnaa wajeer xasuuqii wajeer ka dhacay wagala masaka la dhaho ilaa iyo hadda aan mataqaana raali gelin iyo mataqaana laga bixinin maxallahay cudurdaar oo aanan mataqaana laga bixinin maxallahay diyo mag aan la siinin shacabkii mataqaana wagala masaka lagu suubiyay waxa kale too jiray Gaarisa Gubay waxa kale too jiray inta shacab oo mataqaana la iskaga baneystay maxallahay dhiigooda shifta mataqaana Kenya ay ku bahdilaysay shacabka Soomaaliyeed ma haystaan noloshii asaasiga shacabka NFD ceelal uma qodaan maxallahay kirada laga qaaday United Nationska waxa la geeyaa maxallahay deegaanka ay Kikuyada degan yihiin iyo Jalwada shacabka Soomaaliyeed ee mataqaana dhulkoodii la nabad guurinayay oo qaxooti mataqaana Ethiopian qaxooti Sudanese qaxooti mataqaana Congolese in la keeno ee haddana ay dhulkii nabad guurinayeen dib looguma celinin shacabkii reer mataqaana NFD wixii dhaqaale soo galo waxa jeebka ku shubanaysay dawladda dhexe ee mar walba mataqaana Kikuyi iyo mataqaana Jalwo ay mataqaana iyo Mukamba iyo Kalenjin hadda aragtid Eldoret hadda aragtid maxallahay Nakuru hadda aragtid Mwingi sida ay u dhisan tahay uma dhisna NFD هذا مرة بحالنا نيوه شلك كدعو يعني شلك ما تقارن جواري ومارت كدع ودوينك محل اسكحرو نيروبي جارسا مش نيروبي لا مندير صح روب مركو دو شعبك رير NFD وقعدهم بيجلان وحي ويان متقانا نولشي أساسية أهد باور مش كسرعن كرو hadda aragtidna Kenyada kaleete waa wada laami baa ka wada dhisan
laakiin markaad imaadid maxaa la dhahay markaad imaadid gaaris ilaa iyo gaaris buu laamiga ku egyahay gaaris wixii ka dambeeyo ilaa iyo mandheera jidkii waa mataqaanaa waa burbursan yahay roob hadduu da'o waxaa weeyaan waddadii mataqaanaa baabuurtii ma mari karaan markuusan roob jirinna waa mataqaanaa roobkii boholooyinkii uu suubiyey ayaa waxay keentaa inay shacabkii maalin alla keeno accident ay ku dhammaadaan 900 ruux 64 ruux maalintii ay mataqaanaa ku geeriyoodaan jidka u dhaxeeya gaaris ilaa iyo mandheera marka macnaheed saalix hadalkaaga waxay soo xasuusisay hadda ka hor waxaa xasuustaa Kenya doorashooyinkooda nin walba ay soo galay doorasho Kenya wuxuu dhihi jiray waxaa dhisayaa laami taas marka waa wax xasuustaa marka macnaheed waxa weeye inuu ciddaan inay ku jiraan gumaysi wiiltooda yani gumaysiga isa ka bixin oo yihiin gumaysi dadban bay ku jiraan oo mataqaanaa hubka dhigis lagu suubiyey oo loogu waco shifta oo loogu waco maxallahay refugee shacabka Soomaaliyeedna waa ay mataqaanaa ka daaleen arrintaas haddana waa waqtigii ay ka falcelin lahaayeen ay mataqaanaa dhihi lahaayeen ma dhici karto inay mataqaanaa intan ka badan 2021 shacabka Soomaaliyeed mataqaanaa la gumaysto gumaysina mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed gumaysigii weynaa ee wadamada Yurub wuxuu ahaa dadkii ka dhiidhiyay oo ka falceliyay maanta oo 2021 lagu jiro inay mataqaanaa gumaysi ugu jiraan Afrikaan waa wax laga dhinto waa wax in laga dhiidhiyo u baahan waa wax in laga dagaalamo u baahan عاديات تسوى تدكتوا ومثلوا بهي الصوماليين إن شاء الله كنت بسوي حيث هاي أرنتان حتى أرنتان أو الحري حاس ليه مركز حيث صومالي هانتين أنا المحتاجين نوصل محين تقول دوتا محين نوصل تقول دوتا حاس ليه horta hore wax beel bay dhashaa bay hore Soomaali ugu mahday Kenya anagoo uga aamusneen gumaysihii Ingiriiska shacabka Soomaaliyeed aftidooda markuu uu qaaday oo la dhahay NFD xornimadkiina aan idin siinay xagee rabtaan waxay dhaheen anaga walaaladeena Soomaaliyeed ayaynu rabnaa mataqaanaa inaynu wax la wadaagno gumaysihii Ingiriiska asigoo ka falcelinayo shacabka Soomaaliyeed siday oo la dagaalameen ama ay uga falceliyeen in la gumaysto haddaynu soo qaadano Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo mataqaanaa raggii la halmaalay ayuu ka falcelinayo ayay waxay suubiyeen rabitaankii shacabkii Soomaaliyeed inay ka hor imaadeen Ingiriiska ayay NFD ku dareen Kenya shacabka Soomaaliyeed waa ka dagaalameen ayagoo ay ka dagaalamayaan rag Soomaaliyeed oo caadifad qabiilaysan ay ku jirto ayaa 1967 Arusha Code ugu saxiixay Kenya shacabka Soomaaliyeed hamigoodina iyo hankoodi jibiyay oo ku daray Kenya ilaa iyo maanta Kenya waxay ku hesay segregation maxallahay bahdil shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan NFD maantana waa maalmihii ay ka dhiidhin lahaayeen maadaama ay Kenya soo haweysatay badii Soomaaliyeed iyo maxallahay dhulkii Soomaaliyeed ee Jubbaland marka niyo arintan oo xiriir qaxootiga la xiray iyo Cabdirashiid Janan iyo arintan badda wax isku xiran waa Soomaaliya waa arrin isku wada xiran weeyaan shacabka joogaan maxallahay qaxootiga Dadaab waxay u badan yihiin dadka deegaanka u leh dhulka Dadaab mataqaanaa Soomaaliyeed soo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waa inay ka dhiidhiyaan dhulkooda markii horeetana ay dani ku qasabtay inay qaxooti isku qoraan maantana meel loo kaxayn karo mara dhulkoodii ay joogaan soo waxaan leenahay Kenya xadgudubka ay ku xadgudbayso shacabka Soomaaliyeed dhammaan waa inay ka digtoonaataa waa inay mataqaanaa shacabka Soomaaliyeedna ay ka falceliyaan aan mataqaanaa dhulkoodii ma joogaan Nakuru
ma joogaan Nyanza waxay joogaan NFD waa meeshay ku dhasheen aabayaashoodii awoowayaashoodii ay ku dhasheen ayay joogaan معناها وضد دول كودا لا يقحلوا يا كودا هذه معناها صح بربي هذا صح أقوله وحاويان وضد دول كودي متقانا مركه هورتنا دن ku qasabtay inay qaxooti ku noqdaan maadaama aysan ka heleenin noloshii asaasiga ahayd dawladda Kenya maantana mataqaana dhulkoodii joogaan marka niyo hadda yani arintan waxa u malaysaa Kenya inay tahay inay soo saartay wixii ku jira gudaheeda ay awal maaragtayo xirooyinkan qaxootiga ay u isticmaalaysay inay anaga ay naga samaysto sambaati u malaysaa marka maadaama oo yani wixii mataqaana oo naga dhixin aan soo xirnay xataa dadkii caawinaysa masaakiinta ahaa waxaan shaqaan ku lahayn baraanka u soo dirtay marka niyo tolom kula tahay arintan qaxootida dadka masaakiinta ah oo soo barakiciyay inay Soomaali mideen doonaan معناها وكان لها سوماليدان او كينيا هاستو سومالي توبي هاستو سومالنا كان عادي صح ان شاء الله ومتقانا ان aragtida fog aynu leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta aynu dunida ka joogno inay dirdhabo ilaa iyo Gaaris ee mataqaana in shacabka Soomaaliyeed ee xornimo ay ku noolaadaan ee masiirkoodana ayaga ka tashtaan waa aragtidii aan hore mataqaana u raadinaynay dastuurka Soomaaliyana uu qorayo oo mataqaana ad ruuxa madaxweyne Soomaaliya ka noqonayo waxa weeyaan waa inuu ku dhasho dhul Soomaaliyeed haddii aad ku dhalatid jigjigo ama haddii aad ku dhalatid Gaaris waxaad madaxweyne ka noqon kartaa dalka Soomaaliyeed laakiin Kenya kama noqon kartid madaxweyne taas macquul ma baha macnaha waxa waa adiga dadka ku haysto sidee aad ugu tali kartaa waa lagu haystaa saas oo marka yani mabda meesha ay wataan yani mabda ay wadato ogaadeniya dhulka mataqaana Soomaali galbeed iyo maxaa lahaay mabda Ethiopia ay ka leedahay ama mabda Kenya ay ka leedahay NFD waa inay ku burburiso Soomaaliya burburkii Soomaaliya waxaynu ognahay 1991 jabhadihii burburiyay dawladdii dhexe ee Soomaaliya inay loo soo maray caasimadda Nairobi iyo caasimadda Addis Ababa waxaynu ognahay jabhadii hubeysneed qaranka Soomaaliyeed burburisay inay mataqaana dhaqaalaha iyo hubkana Nairobi u soo marayay beesna ay ku lahaayeen dirdhabe Kenya iyo Ethiopia waxa weeyaan waa laba dalo cadow oo Soomaaliya cadow ku ahaa laakiin hadda haddii run ahaantii aan ka hadalno Ethiopia xogaa yar waa ay ka dabcisay ninkan hadda haysto ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa weeyaan nin u janjeero dhinaca Soomaalida maadaama uu waxa ku jirto waa maslaxadiisa ku jirto waa nin u janjeero dhinaca Soomaalida laakiin dhinacan Kenya maxaa laha arageeda guracan waxa weeyaan inay Soomaaliya mataqaana aysan hormarin inaysan Soomaaliya cagaheeda ku istaagin inaysan shacabka Soomaaliyeed masiirkooda aysan ayaga ka tashanin inay Muqdisho dundunsanaato Nairobina ay mataqaana muraayado noqoto waa aragtida ay mataqaana caqli ugaali mataqaana ay haysta isticmaalayaan هذه وايو هرن أنا وحنا نجرنا كينيا وصاحبتنا بيننا ما تاس وحياة هنتي وجهي أيضا قرصون أنا أعرف الجرن مكتة صح مرتا ما نعرف الجرن مركو حد قال إنه هاجبت كينيا مرتا وصاحبها مركز إنه قاضي مركز إثيوبيا أنا وحنا نقاس إنه أعرف الجرن إنه نقاس محلها قام فرقلين أو قاول صح إثيوبيا عدو جين ونوعه لكن ما دام هذه إثيوبيا وحنا جعمها نقلب بحال وحنا كده قال صاحب له كينيا دي مدام وجهد أرنو بسيفو جين تاس ورن كينيا هدي عن كهذا إن وعدو كوات أمد الصوماليات إن كسب بلاو كون سجال بقول لحدن يصدق ذي إلا يمانتا وعدو جاركة أمد الصوماليات وحين كده هنكرنا على الشباب يضد كان متغانا أركتدم جرعان inay mataqaana inay ka soo bilaabatay Kenya Kenya mataqaana maalgeliso aasihii al-shabaab waa gudane oo Soomaali gobolada waqooyi ah
iyo Axmed Madoobe oo Jubbaland ah waayahay Saalaxow marka maanta waxaa arkay niman xildhibaano ah mise senatooro maaragtay oo aqalka sare Soomaali ka mid ah oo heshiis wala galay janan ku tilmaamay inay tahay filim oo la jiray macnaha waagi hore waxaa la lahayd ninka markuu baxsanay buuxeeda la baxsaday oo ka baxsanay xabsiga Muqdisho ku yaalay waxay kaarta oo isku ogaa marka waxay taageen inta waa arin qabyaaladu marka ummadii yari xataa waa aragnay ma faraadna tahay صح markaas oo la heshiiyay in adeerkiisa marka anagana in adeertan xamar joogto madana heshiiyaan ka warna arintaas ma maxay kula tahay waa arintii ahayd tuug intaadan asiga aadan tuug dhihin ayuu dadka tuug dhahaa gudoomiyaha aqalka sare iyo Cabdi Xaashi iyo Dani iyo midowga musharaxiinta waraga mataqaana qabyaaladiistayaasha ku caanbaxay mataqaana qabyaalada ayaga iyo qurunka mataqaana ku qaraabto oo u shaqeeyo danaha shisheeye oo shilimaad mataqaana ku bedesho shacabka Soomaaliyeed masiirkoodii iyo horumarkooda waa isma dhaheeno inay tahay ma dhaheeno inuu Cabdirashiid Janan uu mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu qabiil uu ku taageeray laakiin wuxuu ku taageeray aragtidan guracan iyo rabitaankan mataqaana khaldan ay shacabka Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo asigana waa indheergarad waa wuxuu arkay ugu dambeyn inaanan hor loo soconin soo adigu waa caqliga maliide Cabdu Cararka maxaa dhaamo waa hore mataqaana u dhahay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan Cabdirashiid Jananna waa arintaas baan mataqaana aan ku saleyn karnaa wuxuu arkay Axmed Madoobe inuusan meel u soconin Jubbaland uusan meel u wadin kadibna wuxuu dhahay dadkaada dhinac ka raac soo dadkiisu dhinac ka raacay Cabdirashiid Janan qabyaalad ma soo celinin waxaa soo celisay Soomaalinimo iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed meesha marka ma sha Allah marka meesha waxay og tahay in meelihii xirxirnaa la furfuray boolashii maaragtay oo markaan ay dabceen la furfuray ma kula tahay marka hadda yani xataa arinta ka dhacday shalay iyo maanta Jubbaland inay ka dhici doonto Puntland waynu isdhihi karnaa Saciid Cabdullaahi Dani maadaama uu ku fashilmay dowlad wanaag iyo horumar iyo kala dambeyn iyo inuu u shaqeeyo shacabkiisa wuxuu ka doorbiday inuu u shaqeeyo imaaraad iyo awaamiir mataqaana laga soo siiyo canaasiirta cadowga ummadda Soomaaliyeed shacabkii uu mataqaana sixir barar uu ku riday shacabkii loo doortay iyo maxal dhahay dhulkii uu u dhaartay Sool iyo Sanaag uusan marnaba ka hadlin uusan u hadlin shacabka reer Puntland uusan u hadlin horumarka iyo dowlad wanaaga iyo kala dambeynta iyo maxallaha kobcinta dowladda curdunka ee ummadda Soomaaliyeed uu ku noqday carqabad amar laga siiyo caasimadda Dubai waanu isdhihi karnaa kacdoonka hadda ka jiro Puntland inuu hor u socon doono sidii Axmed Madoobe Puntland ee mataqaana masiirkooda iyo aayahooda shacabka reer Puntland u istaagi doonaan waayahay Saalax isaashada ugu dambaysantaan aan xewaraysigaana waxay tahay arinta la hayo federalism ka war jawarta federalismka haddii uu yahay deegaan deeganism federal hadduu yahay oo sida aynu shacabka Soomaaliyeed haddaynu nahay mataqaana hadda aynu rabno waynu ogolaaneynaa laakiin hadduu noqdo clanism qabiil ku salaysan waynu ka soo horjeednaa ereygan la leeyahay madaxweynayaashan faraha badanna waynu ka soo horjeednaa waxaynu rabnaa inay federal governor gudoomiye goboleed la isticmaalayo oo deegaan mataqaana deegaanka uu gobolkaas mataqaana saddexdii gobol ama labadii gobol iyo bar isku imaaday oo mataqaana isticmaalaan gudoomiye goboleed waynu taageeraynaa waxaynu rabnaa ciidanka federaalka inuu masiirka amniga waddanka uu hayo laakiin gudoomiyaha gobolka
uu noqdo u dhaxeeyaha dowladda federaalka iyo gobolka aniga waxaan ku noolahay Mareykanka waa 52 state state walbo wuxuu leeyahay governorka awood gaar buu leeyahay waa provide schooling and police so governorka waxaa la rabaa inay hoos tagaan ciidanka booliiska iyo caafimaadka iyo maxaa la dhahay iskuulka laakiin ciidamada militariga iyo mataqaanaa federal awooddu way kala qaybeysan tahay lacagtoo kaleete waxyaabaha masiiriga ah go'aanka gaarista inay dowladda federaalka ay leedahay shacabka ay mataqaanaa dowladda federaalka u mataqaanaa ay looga dambeeyo governorkan looga dambeeyo ammaanka mataqaanaa gobolka ciidanka booliiska dumarka iyo ragga wixii isqabsado tuug yariisoo mataqaanaa gaari xaday tuug yaroo mataqaanaa lacag dhacay waxyaabahaas inuu xalliyo so waa biriijkii u dhaxeeyey shacabka gobolkaas degan iyo maxaa lahay dowladdii dhexe oo mataqaanaa caasimadda waaya saalix oo saaxiibkii aad u mahadsan tahay waraysiga maanta iyo waqtigaana siisay waxaa ku leeyahay insha allah mar kalena waas arki doonaa karnaa ku siisay thank you hay wanaagsan adaa mudan lugax hay lugax